السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي كسور دبادة الصومالي فود ريسيبي مدة هذاكم مقنعين كوكلا مقنعين، لكن الحمد لله رب العالمين إلى ما هدي سو ما تدي بسوق صون نقنعي سيد موضوعي كم قطعة معاك كره هذا ما أنتو حاروا إلى كهذا يعني سوق قفك وهدا أديك فهم سنتي هي معاك كره هذا وحالا جاي بقف كلام فهم سن الموضوع إنه أنفعه maadaama anaga wadankeeni Soomaaliya aan kasoo tagnay wadamadan qurbada aan imaanay waxaan u imaanay culture cusub, maxaan ku rahdaa qaanuuno cusub, wax walbo qofka markaas uu maxaan ku rahdaa surprise ku noqon karo. Marka si uusan qofka maxaan ku rahdaa uu u sii ogaado ayaa ugu tiragalay maxay dareemaysaa horta hooyada uurka leh إلى سجال برضو علاش كسوش سدي أو محن كرا ولا عي حنون يحول بوكودري علاش كسيدرن أسبوع صدر السجالات إلى هي أسبوع عفرتنا محيدر مساء محلقة يا بقف صدر أسبوع صدر السدي ذات هرتين وكبلا وحلناها ججبوا أما فولدين أو practice contraction وحي إنجليز كده وحنون aan ahayn foosha dhabta ee fool been camal fahantahay oo qofka inta la qabto muddo 30 sakin maxaan ku raraa 20 sakin 10 sakin lahaynayo maalintii waqti uu rabo ku imaana habeenkii maxaan ku raraa adoo jiifa hurdada laga qasaya laga keenaya marka maxaan taas ay tahay oo isdiyaarinayo maxaan ku raraa ultraha uu isku diyaarinaya foosha bilowgeeda waa la dhahaa badanaa marka taas fool ma ahan maxaan ku raraa inta horta waxa yaalo ananas halkaana timir ay u jirto intana raspberry tea saddex iyo afar shay maan raba caawo inaan ka hadlo oo noo sahlinayo maxaan ku raraa noo fududeynayo foosha laana meeshan Europe America meel walba Canada Australia ma aha dhaqankeena Soomaaliya waxaan ku xisaabtami jirnay bil waqtiga rabta iska dhalasa laakiin meeshan waa lagu xisaabinayaa maalinta koowaad laga soo bilaabaya marka isbuuc afartanaad hadaa dhaafto waxa laga yaabaa in lagu daro hal isbuuc adi uu badnaa qofku maba loo ogolaado inuu ka sii gudbo 42 week wixii ka dambeeya ilmaha ma loo ogolaado inay caloosha ku jiraan laana waxa la leeyahay dhaqaatiirta badan waxay yiraahdaan mandarta waxay joojinaysaa in ilmahaas ay quudiso oo way dhimanaysaa maxaan ku raahdaa cunugana hadee mandarta maxaan ku raahdaa waa meesha uu cunada iyo oxygen wax walba uu ka qaadanayay ma sii noolaan kara hadda mandarta maxaan ku raahdaa ay hooshayda joojiso marka hadda isbuuc 42 aaba gaartidba waa in irbid lagu diro taasoo foosha si qasab ay kaaga keenayso iyo in lagu sameeyo qaliin C-section maxaan ku raahdaa lagu sameeyo ilmaha markaas inta caloosha laga jeexo laga soo saaro iyo in maxaan ku raahdaa hadda dhahdid caada u foolanaya oo wax dhibaato aysan jirin ilmaha markaas uu madaxooda hoos uu soo jiro uu toosan yahay maxaan ku raahdaa irbidaas lagu dirayo waa laga foolinaya haddoosan ilmaha qaloocan laakiin badanaa hadduu waxaa jira meeshan wax la ultrasound ama ultralead oo hooyada inta uurka leedahay la saaro taasoo lagu ogaanayo ilmaha meeshuu jiro maxaan ku raahdaa inuu caafimaad qabo inuu maxaan ku raahdaa ilmo aan aad u weyneyn oo uu yahay oo markaas meeshii ka soo bixi kara midda kale waxaa jirta umuliso kula soconayso 9 bilood oo bishiiba markay bilaha soo dhawaadaan isbuuc kulmayso oo markay tagtid caloosha laga saarayo maxaan ku raahdaa qalabka wadnaha lagu dhageysanayay maxaan ku raahdaa ilmaha wadnahooda la dhageysanayaa waa lagu weydiinaa inuu ilmaha nuuxsanayo waxaa lagu weydiinaa wixii xanuun ama wax problem ama wax dhibaato haddaad la soo kulantay inta ka maalin aad umulisada ka maqnaad way cabiraysaa dhererkooda ilmaha cabiraysaa caloosha qiyaasaysaa umulisada kulsa marka gaartid 35 week isbuuc 35 week marka gaartid waxay jikimaysaa in ilmaha madaxooda uu hoos soo maray marka cunuga madaxiisa haduu hoos soo maray waa okay hadduusan hoos soo maray ilaa isbuuc 37 ilaa isbuuc 39 dhakhtarkay ku diraysaa oo waxa lagu sameynayaa masaajo ilmaha oo madaxooda hoos si loogu soo rogo marka hadduu ilmaha soo rogo waayeen markaas qofkaas qalin
la geliyaa badanaa. Marka taas anaga hadda ma ka hadleyno, midda ka hadleyna waxay tahay waxaan ku rahdaa irbid see ugu fogaanaysaa irbidan laisku duro ee foosha lasaga keeno oo qasabka ah. Kow waa inaad socsocotaa horta, nambarka koowaad socsoco maalinta haddaa waxba hayna hataa guriga joogtid inta iska labisid tid maxaan ku rahdaa iska bax caag yaro biyo gacanta ku qaado banaanankaas iska aad. haddaa magaalo joogto magaalada iska aad, iska lugee maxaan ku rahaa 30 daqiiqo maalin walba lugee ama 20 daqiiqo 10 daqiiqo intaa heli kartid adig uun soco. Kow number 2 ananas waa taqaanin ananaska meel walba laga helayaa. haddaa rabtid asagoo juice cab, haddaa rabtid asagoo gasac, laakiin aniga waxaan ka jecelahay badan hadda isticmaalaa kan caadiga lasoo jarjaray. mid caadi soo iibsaday waa soo jarjartay. sidoo kale raspberry leaf tea asana waxaan ku rahdaa aad u fiican yahay. timirta oo wada gadanayna maxaan ku rahdaa ayadana cun, socsoco, biyo badan cab, maxaan ku rahdaa nafsadaada adiga isdiyaari. inkastoo foosha waxaan ilaahay subxaanahu wa qaadir ilmahan ugu tirigalay waqtiga ay dhalanayaan, laakiinse inta ma laga sugayo sheekada waa lagu boobsiinaa. ma fahamtay inta lagu boobsiin iska dadaal adiga maxaan ku rahdaa wax una sameey waxaad sameyso waxaa laga yaabaa wax ku anfac, laakiinse ha sameynin wax oo markaas oo adiga ku dhibaya ama ilmahaada dhib u keenayo. hadda sidoo kale waxaa soo weydiin daraad waxaa arkay castor oil oo la cabayo umulasada soo weydiiyay way iga diiday castor oil waxay tiri maya taasoo kale ha sameynin ka fogow markay aragto waxaasoo kale ka fogow. laakiinse shaah calaa shaah wax ma kaa dhibayso, timirta waa naqanaa kana waa fruit. soco biyo badan cab, caloosha socodsii oo maxaan ku rahdaa caloosha inaad socodsiisid qofku markuu umooli rabo inuu caloosha socodsiiyo waa wax aad u fiican oo wasaqda iska soo saardo nadiif adigoo fresh ee markaas isdiyaari adiga dhan nafsadaada isku diyaari fool ayada iska imaanayso. maxaa kaloo sameynaysaa guriga dhexdiisa xataa ku socsoco, shaqee, armaajooyinka soo dedeji, maxaan ku rahdaa dharka laalaab ku celceli, jikada gal, qaanadaha soo dedeji, soo tirtiro, adig dhaqdhaqaaq jirkaada energy sii, ku dhex socsoco. haddaadan waxaan hayna xataa guriga dhexdiisa ku socsoco inta daqiiqad qabsatid ku socsoco haddaad rabtid inaadan banaanka aadin. maxaa kaloo sameyn kartaa yooga samee eed naftigeeda oo maxaan ku rahdaa jimicsi inta roog yar dhulka soo dhigatid maxaan ku rahdaa dhaqdhaqaaq lafahaada jimicsiga yacni ay sameeyaan loogu tiragalay. mid waxaa jira dadka uurka leh loogu tiragalay, kaasoo kale sameyso. haddaad guriga ku dahansan karaya buraan burdheel ani Soomaali hadii la joogo waxaa la heli jiray kal iyo mooy inta badar lagu shuuro tumo ilmaha uu soo degi jiray degdege meesha kal iyo mooy ma lahan. maxaan ku rahdaa maxaa sameynaysaa daansi xataa samee buraan burdheel maxaan ku rahdaa lafaha, laakiinse waxaad jiifanin oo inta kursi isku laabtid ama sariir maxaan ku rahdaa isku laabtid maxaan ku rahdaa inaa fooshaa rabaabno. foosha waa inaad jirka dhistaa oo soo diyaarisaa dhaqdhaqaaq badan lafahay isgalgalay inay maxaan ku rahdaa kala baxaan. meeshaan waxaa ku sugaya howlaha ku sugayso howshaas marka waa inaad u qalab qaadataa. marka maxaan ku rahdaa 9 bilood waa la ogyahay markaa soo wadid ilmo waxaa bilaabaysaa waxaad dareemaysaa daal badan, maxaan ku rahdaa waxaad dareemaysaa culays badan, waxaad dareemaysaa jiifkii nacaysaa. hadda ana habeenka jiifku igu adag yahay dhinacan markaa u jiiftid haddana dhinacan isku geda lafiya ku xanuunayo wallahi. mar walba maxaan ku rahdaa hurdada way kaa dhamaanaysa. waxaa laga yaabaa markaad jiifatid inaad waqtigaas soo kicileed 3 saac ka hor ay kaa dhamaato hurdada ama 4 saac ka hor oo aad soo toostidba. marka waa la ogyahay qof walba wuu rabaa inuu maxaan ku rahdaa foosha waqti si dhib la-aan oo maxaan ku rahdaa dhibaato lahayn uu ilmihiisa isagoo nabad qabo uu ilaahay banaanka ugu keeno. marka maanta waxaan rabay inaan ka hadlo erbidaas laga ordayo iyo foosha qasabka la iska keenayo taas oo lagu kala badbaadanayo. taas yacni wax walba meeshan oo cunuga ku dhibaato hadduu uu qabo cid kaala tashanaysa malahan. maxaan ku rahdaa ilmahaasaa maanta la fiirinayaa oo haddii cunuga maanta uu adoo foolanayo uu xataa wadnihiisa dhaco, wadnihiisa oo daciifo, ilmihii uu daal badan dareemo, waxaa lagu duuraya operation degdeg ee qofkaas hal qala lagu leeyahay si ilmahaas loo badbaadiyo. adiga cid kaala tashanaysa malahan. maxaan ku rahdaa
marka asxaabi maanta waxaa jeclaysay inaan idin la wadaago sidoo kale haddaa jeceshahay waxaa jira nafsadaada isdiyaar markaa ku leeyahay xataa inaad diyaarsatid boorsadii aa ku aadi lahayd isbitaalka ilmaha dharka inaad usii diyaarisid dharkii ilmaha oo lagu soo bixin lahay intuu meesha joogo ilmama horta isbitaalada waa laga helaa badanaa intaa arkaaniga dharka uu ilmaha xirto iyo bambaris iyo maxaan ku rahdaa iyo shukumaanadii qabayska laakiin lagama helo kareemo iyo shaambo iyo saliid wixii inuga loo marin lahaye ilmaha waxay ku dhashaan cijiyo dhaadheer wejiga isaga xagxaganayaan ma laga helayo waa inaa waxaasoo dhan sii diyaarsataa adiga dhar kama helaysid shaambo iyo kareem iyo wax kama helaysid marka waxa adiga aa u baahan tahay nafsadaada inta cisbitaalka joogtid iyo wuxuu u baahan yahay ilmahaada intuu cisbitaalka ku jiro inaa ayadana markay xanuunku qabato aanan raaraadinno aa boorso kusii diyaarsatid oo marka xanuunka dhabta ku yimaado foosha maxaan ku rahdaa boorsadaada dhegta qabsatid adoo stress isgelin laana stress haddaa isgelisid xanuunka foosha way kugu adkaanaysaa xanuunka foosha lagu sheegaya saa adiga u qaabishid uu kuu qaabilaha hataa laakiin maanta isdiyaarsid oo habi tahay adiga wax boorsada kuu diyaarsan tahay nafsadaada diyaari meel walba nadiif lugaha dhaqday maxaa ku cijiyaha iska guray kaale arag markuu xanuunka qabto musqusha gal biyo qaada maxaan ku rahaa soo qubayso adoo nadiif ah dhar nadiif xiro iska nafis xanuunka markuu qabto maxaan ku rahdaa qaabil markuu kusii deeyan maxaan ku rahdaa iska qusul habi iska dhig cuqdad hadday kugu jirtay oo cid cuqdad u qabtay iska ilow ma fahamta malena cuqdad hadday kugu jirtay qofka aada cuqdad u haysay iska cafi iska ilow habi iska dhig xanuunkaas marka ilaahay wuu kuu fududeynaya qofka mideeda kale haddaa salaadaada tukatid oo ilaahay baridid oo mar walba sujuud ilaahay ku baridid oo markaad salaad walba tukatid dhahda ilaahu ii fududeey xanuunka foosha wallahi wuu kuu fududaanaya wax walba oo ma dareemaysid marka haddaa xiiseynaysid boorsada cisbitaalka ama hospital bag waxaa loo yaqaano haddaa xiiseynaysid comment hoos igu soo reeb waa soo gelinayaa si ay ugu soo faa'iidaystaan gabdhaha yaryarka ee hadda ugubka ah foosha aan aqoonin ay cisbitaalka aan aqoonin ay hadda kow u tahay maxaan ku dhahay si ay ugu faa'iidaystaan naftigooda hoos ku soo reeb maxaan ku rahdaa aydan waa soo gelin doonaa iyo waxyaabahii kale oo aad jeceshihiin wax program kale oo jeceshihiin maxaan ku rahdaa in oo aan idinla wadaago ayadana maxaan ku rahdaa waa soo gelin kartiin laakiin ana waxaan idinku talin lahaa in aadan jiifano socodkaas ilaa Soomaali waa socon jirna iska dhaqdhaqaaqadaan socotaan maxaan ku rahdaa irbadaasna ay ka fogaataan eed naftigeeda si lagugu durin haddaa socoto maalin walba ilmaha isagaa soo degaayo maxaan ku rahdaa haddaa marka socotid lagu soo riixo kale oo waa socon weysid maahan haas dhahin weli ilmahaygu way soo degeen mu baahan socod uma baahani may weli soco ana 2 daqiiqo ilmahaas markaa ka dago daqiiqo 3 buu socon karo maxaa sameeyaa haddana oo isku sii qasbaa sii socdaa oo ilaa waxaa isku daya inaad socdo 20 daqiiqo naqsi meel fariiso mobilka qabso ku buuxso maxaan ku lahaa saacad soco markaa daashid biyaha wadata biyo qaado kursi haddaa heshid fariiso saacad boos aha maxaan ku rahdaa stop dheh haddana markaa istaagto haddana saacadda meeshaad kasii bilow 30 daqiiqo wax maaha 20 daqiiqo wax maaha markaa dhibays inta guriga iska dhex fadhin leed soco mideeda kale maxaan ku rahdaa gurigaada dhexdiisa nadaafad ka qaban kartaa maanta dhan wax dhaq waxna nadiifi horta waxaa lagu yaqaanaa gabdhaha uurka leh 9 bilood marka la garo waxaa ku waalanaysaa horta guriga kaa hor imaanaya waxaa leedahay waxaan dhaq ilan inta ka horeysa culeysaad dareemaysay laakiinse 9 bilood qofka markuu dhamaado wuxuu dareemaa fuudeed maxaa keeno ilmihiia soo degay kafkii markaas ay madaxa kula jiraan culeyskii badnaa iyo wixii markaas waa fududaanaysaa qof fududaa noqonaysaa wax walba markaas ay u sahlan yihiin markaas waxaa ku kicisa gurigoo dhan shaqo dhar dhaq dhar feere dhar laalaab maxaan ku dhahdaa armaajooyinka soo dabagedi alaabti dhaq ku celcel waxaa laga yaabaa alaab aadan meel ku raseysay meesha horta maxaa ku jira maanta ilaa meeshaan soo rogaaba jirto meeshaa ku kicaysaa marka jirkaada inaad energy siisid waa loo baahan yahay maanta intaasaa mawduuciga jeclaystay maxaan ku rahdaa intaa mawduucan mid kale aan kula kulmi doono waa walaashiin Fortuno idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu